munaasabada tani ciidul adxa ama ciida carafo ayaa waxaa lagu qabtay mid ka mid ah hodheelada lagu cunteeyo ee jaamacadda islaamka waxaana ujeedadu ahayd in quraacda lagu sheekaysto islamarkaana la iskula dardaarmo waxaana ka hadlay aqoon-yahano Soomaaliyeed culimaa u diin ku dhaqan Malaysia. Munaasabada tani ayaa waxaa soo qaban qaabay ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia ayagoo qaabkay u dhigeen ay ka duwaneed qaababkii hore waxayna ku soo bandhigeen waxqabadka ururka muddadii uu jiray iyo madadaalo ay ku maaweelinayeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay xafladda kadib ayaa gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah ardayda dhanbal tahniyad u diray ehladooda iyagoo u sii marsiyay TV-ga caalamiga Universal. Dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair. gaar ahaan waxaan halkaan hambali ugu dirayaa ciid wanaagsan ardayda wax ka barata dalka Malaysia. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. كفايدتنا فرصدان قالقة مناسبة عيدة وحن لها دمان أمد الصوماليات عيد ونحسن جارهان هويدي يا بهيجا على هيجا حاسك هيجا يقرب دوران مول بيجوان. waxaan halkaan hambaliyo uga dirayaa hambaliyo ciideed dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caalamka gaar ahaan familkayga waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo ciida sanadkan iyo sanadkii. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkaan hambaliyo ciida uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وأنتم بخير. عيد كان الله نوجرسي بش برا. مد مسلمين تعمل كسر جوكت جارهان ومد الصوماليات وحلينا عيد مبارك نكو عيد بش براقة عيداني عيد ذكر الله وحن كرجينا ودن كنا نودنا الله بنا وأنا محسن. munaasabada tani ayaa waxa ay noqonaysaa tii saddexaad inta aan ku sugnaa wadanka Malaysia isla markaana aan kala qayb galayay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka kan Malaysia. guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Saciid Umar Universal TV Malaysia.